ilaah baa mahad iska leh runtii xafladani quruxda badan aan kula wareegayno qalabka dadka walaalaheena qadar nagu deeqay runtii waxaan rabaa inaan salaamo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii xafladani qaybka waxaa sidoo kale aan rabaa inaan salaamo safiirka dadka walaalaha nahay qadar iyo safiirka sidoo kale dalka walaalaha nahay Turkiga General Mahmoud iyo wafdigiisa ay ka socda wasaaradda gaashaandhigga dalka walaalaha nahay qadar taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga difaaca golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed runtii maanta waxay inoo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan oo farxad badan waxaana sharaf weyn ii ah inaan u mahad celiyo anigoo ka hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu mahad celinayaa amiirka dawladda aan walaalahan u nahay qadar Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani iyo xukuumaddiisa dadaalka ayaan walaalaha nahay dadaalka ay nagu taageerayaan sidii aynu sharaftii aan ku lahayn caalamka u soo ceshan lahayn sida dhaqsiyaha badan taas aan macnaheedu tahay inay maanta ay nagu taageereen qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan runtii waxay tahay taariikh la miilaabaana qalubteen aysan ka tirmaynin insha Allah ta'ala waxaana filaynaa ama rajaynaynaa aan ka rajaynaynaa dalka walaalaha nahay qadar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeena oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tanna waxay daliil ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo hadafka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre oo runtii dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto ee dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay astaan u tahay soo laabashada sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababaro aan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda tanna waxay tahay bilow fiican runtii aan dhihi karno astaantii ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa munaasabadan oo maanta aan kula wareegayno qalabkan ciidan waa munaasabad runtii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku farxi karto annagana gaar ahaan ka wasaaradda gaashaandhigga runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan rabaa sidoo kale in aan u mahad celiyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asigana sidoo kale runtii muujiyay dadaal aad iyo aad u xooggan inaan helno qalabkan ay nagu deeqaan runtii asna qayb ka noqday runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii ka soo qayb galay xafladda nala joogo iyagana sidoo kale waa u mahad celinaya waxaan rabaa laakiin aan rabaa inaan shacabka la wadaago insha Allah ta'ala waxa la gaaray waqtigii dalkaani nabadgelyadiisii iyo
sharafkiisa iyo karaamadiisa ay soo laaban lahayd waana waqtigii waxa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyay ama dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed runtii mar walba u taagan xilliga aan iska dhicin lahayn ummadan Soomaaliyeedna dhibaatada ay ku hayaan ka dulqaadi lahayn ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay diyaar u yihiin ayna isku diyaarna u yihiin ayagoo oo maanta haysta hogaamiya taliye runtii khibrad u leh arrimaha ciidanka runtii waxaan filaynaa waqtiga dhow inaan gaarno ama gaarsiino shacabka Soomaaliyeed waxa ay ku farxi karaan ay niyadooda ay jeclaan doonto aad iyo aad u mahadsantihiin hadal hilmaan kuma jiro safiirkeena qadar runtii oo madaalaha sidoo kale waqti badan ku bixiyay arintan inay suurta gasho safiir xasan aad iyo aad u mahadsan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh